reer Minneapolis goorma xanuunka qabyaalada idinku bilowday goorma walaalayaal adinka dhan saa u jirateen acuudu billah okay I want to say a few things okay Nasri was banned walaalayaal Nasri please hadhina Nasri yaa loo aaraa Nasri looma aari karo because Nasri Soomaalida Minneapolis joogto oo dhan hadday u codoon lahayn ma wingareen lahayn hadduu reyni lahaa oo cadaanka dhan intay wingareeyaanna labgorraba waa laga ridi lahaa kursiga because waa qof oo problematic ah asagiya wuxuu yahay qof problematic ah siyaasada u cararaya ummadan dhulkan ka taagaya the violence iyo balaayi iyo sameeyaan aan dhahaya hala sameeyo it doesn't work walaal saas ma soconayso heer wuxuu gaaray markii postiyaashiis wuxuu ku hadlayay iyo fikradihiisa la aqriyay la dhahay noloshaada inta ka dhiman xafiis uma carari kartid Nasri is banned walaal banned maxaa ma taqaanaa forever ma soo xafiis uma carari kartid ma fahanteen dada kaamatu ku rafanayno dhahan ha wiilkii ka horeeyay hebel jamaal muxuu ahaa kan muxuu ahaa jamaal saddex qof xataa ma codeen wallahi bilad la ana waa jeclahay wallahi waa jeclahay Soomaaliya dhow way ismatiin jamaal saddex qof xataa uma codeen primary xataa kuma soo bixin walaalayaal adinka waxa obalaysa Soomaalida oo Minneapolis joogto oo dhan horta Soomaalida Minnesota joogto oo dhan waa maybe 5% ka degan Minneapolis magaalooyinka ka baxsana degannahay badankan Minneapolis Soomaalida deganna haday isku wada tagto ee hal qof u codeyso qofkaas codka Soomaalida kuma reenayo marka codka Soomaalida inuu taageero noqdo ma ogiye qofna kuma soo baxo qofna kuma haro Jamaal wuxuu u haray codkiisa ayaa soo saari waayay qof wuxuu ahaa aad u cod yar oo siyaasad waxba ka aqoonin oo barbaratooni ah oo de ilmaha yar xataa markuu hadlaayo hadalkiisa kama dhaadhicinin and I say this with respect Nasrina wuxuu ahaa qof jiran oo siyaasad waxba ka aqoonin oo cuqdadeysan oo qabyaalad iyo quran wadnaha qaw ka siisay oo heer wuxuu gaaray asaga ficiis inuu iska reebo balaayada hadaa qalbiga ka jiranta isbitaal la aada ama waa la aamusaa laakiin xaqdigaaga inta computerka la soo gashay qaraar soo qorqortid waxa qorto walaal way ka daba imaanayaan hadaa qabyaaladiisa tahayna meelna ma gaaraysid because ay qabyaalista u noqonay Soomaalida dadkaaga u kala jafay u kala jeclaanay waxa rabtaa Minneapolis oo intaas kun oo qoomiyad u noqotay madaxtooyo that doesn't work marka qabyaalada la joojiyo qabyaalada ha waarta isu qoraysin iga joojiyo ariga qabyaalada waxaas waa nabcahay wallahi bilaa talaa abna qof qabiil waxa sita ma jeclin laakiin waxa jeclahay ina Umar Faatax u vote gareysin waxa jeclahay ina isku xirnaatay waxa jeclahay Soomaalida Minnesota joogto oo dhan inay hal mid noqdaan ma fahantay at the end of the day qof walba Umar Faatax caanayo wiilkaaga marka asaas u fiirisid waa jeclaan lahayd Umar Faatax oo kale inuu noqdo wiil asluub leh aamusan wax bartay siyaasi ah hadli karo wuxuu raba sheegi karo wuxuu raba sheegi karin Soomaali u siman tahay we all wish ina asagoo kale wiil heesano marka baxa u soo codeeya maxaa qaldan masarka hala joojiyo walaalayaal oo Soomaalinimadu waa islanahay walaalayaal Soomaalinimadu waa islanahay joojiyo waxa wadiin wiilku u soo codeeya ma fahanteen wiilkiina waaye badankii waaba dhali kartiin walaalayaal Umar Faatax loo socday ciyaarta joojiya dadkan oo siyaasad waxba ka aqoonina inta soo bartiin oo soo adkaysin rag adag oo siyaasad wax ka yaqaan oo hadla kar keena walaalayaal annaga u codeynayna iska dhaaf Minneapolis mayor governor ha u cararaan mid kale hal waxa idin sheegay Umar Faatax bari kamaal madaxweynuhu u carari kara waana Mareykan ku dhashay laakiin dadkiina kale ta 89% you're not kiin ugu wana Mareykan ku dhashay xaliga 20 dhowr san hadda inuu 30 sano jiro laakiin Umar Faatax walaal bari kamaal madaxweynuhu u carar doona he's the next Obama maxaa sameyn doontiin markaas eeto sakiima ma la liqaysiin haddaba get with the bandwagon haddaba support fiican si wiilka he's running for president bari kamaal Umar Faatax adiga Umar Faatax for mayor ku jirtiin ana waxa ku jira Umar Faatax for president uu yar yahay hadartaan 4 sano maybe 10 sano siina 10 sano ka bacdi way arki doonteen Umar Faatax oo madaxweyne u cararaay markaasna waxa dhahdeen dariibu 19 caarkee wuxuu sameeyay codbood ilhaaniya saga gabar hindi bay ka doortay saas dheh wariyaar kaca Soomaaliya kaca we need to unite madaxweyne oo Mareykan oo Soomaaliya noo soo socdo